بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكلنكي لباد iyo qaybtii labaad ee barnaamijkii hal tarjaman ama hal turjuman sida waxa weeyaan Soomaalidu u yaqaanaan. barnaamijkan hore u sheegnay waxaynu ku soo qaadanaa inuu maalin kasta hal bayt oo gabay carbeed oo inagu af Soomaaligiisii aynu ku bedelayno haddii ay suurta gashana ujeedadiisa aynu tilmaamayno. barnaamijka insha Allah taala ugu badnaan waa saynu soo sheegnay 5 daqiiqo weyn hadduu waxa weeyaan ugu badan yahay. farsamadii zaciimka iyo soo tabintii miskiinka wuxuu leeyahay gabaygan hadda aynu soo qaadan doono maanta waxa weeyaan gabay ay iska leeyahay abwaan caan waxa weeyaan iyo shaacir magac weyn oo waxa weeyaan aad ay u yaqaanaan ummadda islaamka oo dhan. shaacir carbeed weeyaan Abu Tayyib al-Mutanabbi. waxaynu soo qaadanaa maanta bayt aad u qiimo badan uu leeyahay. marka wuxuu leeyahay إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. هذه أردت اللباح وحويان دولشي سفرينهين هأملين إنه قصل عيو وجددا هي حكمة كدن بيسوي حويان قف كسته أو كو قصلا كو مجعلا قف كسته أو فرحت كو موجية qalbigiisu inuu ku wanaagsan yahay qasab maaha. marka waxa weeyaan waa hadag min way waxa weeyaan wax badan ka fiirso. waxaan idhi marka tarjumada beedkan hadii uu libaax miliqsado micida ku muujo ha is oran mabsuud weeyo malag ha soo raadsan. markuu libaaxi waxa weeyaan dholashiisa aragto waxa weeyaan isdhihin uu qoslaya ama uu faraxsan yahay oo hoosta ka soo gali malagaaga ha soo raadsani waxa weeyaan naftaada waayina way. hadii aynu waxa weeyaan akhriskiisa hal mar ku celino intaynu waxa weeyaan aynu idinka tagi wuxuu yiri إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. hadii uu libaax miliqsado micida ku muujo ha is oran mabsuud weeyo malag ha soo raadsan. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.